السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا تونا صنداوي الكسور دوادا قدبدا وركنا عاوة أرجو حسين حسن عدا يا توصي دكور رمية وحد داونا سن شبكة ديني وربحين تشنقل تيفي وحد داونا سن وركني توبي سلوك رد قال ذاك الصعدة ودك توبي ودحية رمضان يجمع هذا تيبي ألاف وركان هذا هلا نوع حكم ذا حلق الله أي سميان عيد مدى دفاع توبي يا مقالة مقالة حلق الله لقو قبرتي خب آلو تربضن أي كوحدة تيبي ألاف أي مال كوكرني سي أي عيد مدى قعنت أي كل دجان عيد مدى ayaana baaritaana ka wada magaalada maqal ah oo lagu raad joogo hadhaagi TPLF maadaama laga qabsaday caasimada dalkaasi ee Tigray ee maqal ciidamada ayaa gacanta ku dhigay hubka aad u tiro badan oo ka kooban 13 control oo isku jira qoryaha kumaatiga u dhacay rasaastii sidoo kale baskoolada sidoo kale miinooyin fara badan oo kuwa dhulka lagu aasaa ciidamada TPLF ayaa gabi ahaanba iska baxay magaalada maqal maadaama ay gacanta ku dhigeen ciidamada federaalka ee Ethiopia wararka ayaa inta ku daray Dr. Abiy Ahmed Ra'iisul Soomaaliya ilaa haatan inuu ku doodayo in dagaalka ka socdo magaalada maqal ee gacanta ku dhigeen ciidamada federaalka Ethiopia uu sii socon doono maadaama ilaa haatan gacanta lagu haynin hadhaagi TPLF ilaa haatan iska baxday gabi ahaanba magaalada caasimadu waa maqal iyagoo ku sii jeeda wadankaasi Suudaan isla markaana la sheegaya in gabi ahaanba ee maqal ilaa haatan ay gacanta ku hayaan ciidamada federaalka ee Ethiopia waxa wararku inta ku darayaan in ciidamada TPLF ee jamhadda ay ilaa haatan iskaga baxeen gabi ahaanba caasimadda maqal halkaasi waxa ka barakacay dad aad u tiro badan isla markaana ku sii jeeda xuduudka Ethiopia ay la leedahay Suudaan wararka ayaa inta sheegaya in gabi ahaanba ilaa haatan ay degreen xaaladda wadanka Ethiopia maadaama ay dagaal xooggan ka socdaan oo u dhaxeeya TPLF iyo sidoo kale ciidamada federaalka ee Ethiopia qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada TPLF hogaaminaysa ayaa ilaa haatan waxay sheegayaan in dagaalku dib u cusboonaan karo maadaama laga qabsaday caasimadda maqal ee TPLF isla markaana ay sheegayaan in gabi ahaanba uu dagaalku cusub u yeelan doono maadaama ilaa haatan ay gacanta ay ku dhigaan caasimadda maqal ee Tigray iyo jamhadda TPLF oo gabi ahaanba iskaga baxay magaalada maqal iyagoo ku sii jeeda wadanka Suudaan oo ay xuduud la leedahay wadanka Ethiopia wararka inta ku daraya in gabi ahaanba ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed uu sheegayo ilaa haatan la harayn haraagi ka soo haray ciidamada TPLF ee jamhadda ilaa haatan ay ku raad joogaan in gacanta ay ku soo dhigaan qaar kamid ah ee saraakiisha hogaaminaysa jamhadda TPLF wararka inta ku daraya in gabi ahaanba ilaa haatan aan gacanta lagu hayn haraagi TPLF isla markaana ay gacanta aan lagu soo dhigi doono buuli ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ilaa haatan ciidamada federaalka ee Ethiopia ayaa gacanta ku haya caasimadda Tigray iyo jamhadda TPLF ay leedahay ee loo yaqaan maqal ilaa haatan waxay wararku inta ku daraya in dad badan oo shacab ay gabi ahaanba iskaga baxeen magaalada maqal maadaama ay gacanta ay ku dhigeen ciidamada federaalka ee Ethiopia wari macada war rasmiya kalwasos lagama soo saarin dagaalka muddooyinkii dambe ka socda wadanka Ethiopia u dhaxeeya Oromada iyo Tigray waxay laanta la sheegaya in gacanta lagu dhigay hub aad u tiro badan oo ay lahaayeen jamhadda TPLF isla markaana ay gacanta ay ku dhigeen ciidamada federaalka ee Ethiopia wararka ayaa inta ku daraya in gabi ahaanba ilaa haatan dagaalka uga socon doono magaalada maqal maadaama oo gacanta lagu dhigay caasimadii Tigray iyo TPLF ay gacanta ku dhigeen ciidamada federaalka ee Ethiopia madaxweynaha ra'iisul dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegaya in gabi ahaanba ay rabaan ilaa haatan ay ku jiraan si gacanta ugu soo dhigi lahaayeen ciidamada hogaaminaysa saraakiisha hogaaminaysa ee jamhadda TPLF oo ilaa haatan ka baxsaday goobta dagaalku ka socday waxaa jirta maxaabiis badan oo ciidamada TPLF jamhadda ka tirsan oo gacanta ku dhigeen ciidamada federaalka ee Ethiopia isla markaana la sheegaya in dhawaan ay soo bandhigi doonaan ciidamada federaalka Ethiopia oo gabi ahaanba la wareegay caasimadda maqal ee Tigray dagaalka muddooyinkii dambe ka socda wadanka Ethiopia ayaa marba wajhi kale yeelanaya maadaama ilaa haatan ay jiraan hubkan ciidamada kala duwan isku adeegsanayo goobo kamid ah Tigray iyo sidoo kale Oromada waxaa la sheegaya in ciidamada ugu badnaa militariga Ethiopia ay gacanta ku dhigeen magaalada maqal isla markaana ay rabaan inay soo qabtaan saraakiisha isla markaana waxay sheegayaan qaar kamid ah saraakiisha TPLF oo aan ka agdhow goobta dagaalku ka dhacay ee magaalada maqal ayaa sheegaya in shacabkii wali ay sii qulqulayaan iyadoona ilaa haatan dabjin loo sameyn Suudaan ayaa sheegtay inay xuduudkooda xidhan doonto maadaama ay jiraan dad aad u tiro badan oo ka soo qacaya dagaalada u dhaxeeya Oromada iyo Tigray jamhadda TPLF ayaa saraakiisha hogaaminaysa oo warbaahinta kula hadlay duleedka isla magaalada maqal ayaa sheegay inay isdhawaan soo ceshan doonaan caasimadoodii oo ay gacanta kaga dhigeen ciidamada federaalka ee Ethiopia waxayna sheegeen in gabi ahaanba aysan jirin wax kaga dhintay dagaalkaasi maadaama ay ka baxeen goobihii ay gacanta ku hayeen ciidamada ama jamhadda TPLF waxa wararku inta ay ku darayaan in gabi ahaanba ay rabaan in dib ay u qabsadaan magaaladii maqal oo gacanta hadda ay ku hayaan ciidamada federaalka
ee Ethiopia ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ilaatan waxa uu sheegayaa in aan la qaban doono goobo kale oo muhiim u ah maadaama ay horey gacanta ugu dhigeen garoomo caalami ah oo ku yaalay ay ka duuli jireen diyaaradaha qomaatiga u kaca ee dagaalka iyo sidoo kale ay qabteen hubkan iyo kala duwan waxaana uu sheegay in ay gacanta ku soo dhigi doonaan saraakiisha hogaaminaysay jabhadda TPLF anigoo Xuseen Xasan Cabdi ayaa dii u rabayay inta warka waxay ku doona salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala